madaxweynaha dowlad goboleedka galmudug iyo wafdi hogaaminaya ayaa maanta dib ugu soo laabtay magaalada Cadaado waxaana garoonka diyaaradaha ku soo dhaweeyay ku-xigeenkiisa wasiiro xildhibaano saraakiil ciidan iyo qaybaha kala duwan ee bulshada soo dhaweyn kadib ayaa wafdiga madaxweynaha galmudug waxaa loo soo gudbiyay xarunta madaxtooyada dowlad goboleedka galmudug halkaas oo warfidiyeenka kula hadlay wuxuuna sheegay in 3 maalin kadib uu dhici doono shir ay ka soo qayb galayaan hay'adaha deeqda bixiya kaas oo looga hadli doono gurmashada dadka abaaruhu ay ku haystaan deegaanada galmudug mudanayaal marwooyin waxaan idin sheegay aniga waxaan maqnaa muddo runtii dhowr iyo 30 cishaan maqnaa kuma maqnayn meel cilaa iyo iskama wareegayeen waa soo shaqeeyay waxaan ka soo shaqeynay in la qaban doono shir weyn oo UN ku abaabulayo oo galmudug wax loogu qabanayo loo sheegayo adduunka iyo dowladda deeqda bixiyay cid walba in galmudug wax loo qabto abaarta iyo dhibaatada haysa waxaan shirkaas dhici doona bisha kowdeeda insha Allah waa maalin talaado soo socota inaan laabano weeye oo shirka ka qayb galno anigana waxaan idinku yimid inaan maaragtay labada bari la joogo oo bal aan xaaladda iyo wixii aan meesha geyn lahayn waxyaalaha naga dhiman meesha halkan ka kaamilano madaxweyne xaaf ayaa sidoo kale sheegay in maalmaha soo socda deegaanada galmudug ay soo gaari doonaan diyaarada sida gargaar kuwaasoo loogu talagalay in lagu caawiyo dadka u liita abaarta dabada dheer ee ka jirta galmudug midda labaad waxaan idin sheegayaa labadan bari waxaa iman doontaa dhowr diyaaradood oo raashin sida oo dhiig joojina raashinkii intii badnaydna waxaa loo raray Boosaaso waxaan rajaynaynaa 10 bari gudahooda iyaguna inay soo gaaraan oo meel kale la mariyay waa la waayay wax badan ayaa noo soo socda ilaahay iidankii annagana ilaahay roob iyo khayr iyo barwaaqo hana siiyo ilaahay nabad hana siiyo ahlu sunnada iyo dadkeenana ilaahay noo soo jeediyo qalbigooda ilaahay noo soo jeediyo inaanaan weerarayno walaalahoodna Allah ha tuso dhammaan deegaanada galmudug ayaa haatan waxaa ka jira abaar baahsan oo saameysay dadka iyo dunyada waxaana abaartaasi dadka ugu sii darsoomay diidmada lacagta shilinka Soomaaliga taas oo xaaladda ka sii dhigtay mid culus maxamed maxamuud awaadan TV-ga caalamiga Universal Cadaado